arrinta galmudug waxa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horreeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbeddelay annagu ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftanaan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay 3 process yuu maraa 3 phases 3 wajuu maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladdeeda inaan ogaado stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaan yidhahdaa qaybta saddexaad waxaa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhegaysanay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choiceku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay in la ogaado oo daawada la siiyo choiceka isagaa iskale inuu qaato daawadii inuu diido laakiin haddii ladin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo